السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار صرفت لسود وهذا وايجني رابيض وحا آد نوغو صوبتي رونتي إن مدة برنامج شو أما السؤال بدن أو كلا دوون أو الله حريرة صرفك سيبا دادكو حين ويديني وحيابة ديري أو صرفك رونتي الله حريرة وحانا أركي صار رونتي مسكونسبشنز بدن أما ماركتي فهم درها بدن أو ماركتي صرفك الله حريرتا arrimaha qaybtood ama su'aalaha qaybtood waxa ay la xiriiraan in qofkii maxaa la yiraahdaa uu haysto maxaa la yiraahdaa ama sarifka muddo ku jiray laakiin qaacidadiisu aysan weynin ba ahayn dadka qaybtoodna waxay su'aal iska weydiinayaan hor sarifka wax ma laga heli karaa oo waliba qofku lacag kama soo saaran sidaa daraadeed taas ayuu is weydiinayaan dadka qaybtood dhibaata waxa ka haysata xagga psychology-ga oo waxa laga yaabaa qofku markuu wax yar trade sameeyaba ama akoonkiisa uu wax yar soo kiciyo inuu haddana akoonkiisa iska burburiyo oo uusan lahayn qaabkii risk managementiga ama loola macmili lahaa waxa loo yaqaano psychology-ga hagaaga haddaba annagu arrimahaas oo dhan ka duulayna ayaan sanadkan cusub waxaanu dib u habeyn ku sameynay barnaamijyadii aanu bixin jirnay ama xirfad kaab college aanu bixin jirnay ee la xiriiray sarifka suuqa qalaad ee caalamiga ah marka waxaanu diyaarinay barnaamijkii isbedel ballaaran aan ku sameynay awal meesha aan dhigi jirnay hal master class hadda waxaanu diyaarinay 4 master class oo kala duwan ayaanu sameynay ee iidankii waayo marka guud ahaan barnaamijkan ayaa ka faa'iideysan kara barnaamijkan waxa ka faa'iideysan kara qof kasta oo doonaya in uu xirfad cusub sameeyo ama xirfad cusub uu barto ayaa barnaamijkan ka faa'iideysan kara oo runtii uu wax ku qabsado haddii ilaahay yiraahdo waayo marka maxaa marka meesha inoogu xiga ama aan si guud u galo waxyaabaha master classyada kala duwan ee aanu sanadkan diyaarinay haddii ilaahay yiraahdo koo waxaa ka mid ah forex trading all in one koorsadaas waxay koofar gareynaysaa wax walba oo la xiriira sarifka basically koorsadaas ujeedadeedu waxa weeye inaad ku fahantid sarifka oo dhan waxyaabaha la xiriira basically dhinac walba in wax laga tuso oo wuxuun aad ku shaqo gali kartid aad baratid haddii ilaahay yiraahdo waxa kugu xigi doonta koorsada la yiraahdo Elliott Wave Master Class Elliott Wave ka dadku waxay u haystaan inuu yahay arrin sahlan laakiin xaqiiqdii ma ahan Elliott Wave ku wax sahlan basically Elliott Wave ka haddaad fahantid suuqa structure-kiisa oo dhan waad fahantay dadku waxay moodayaan un wave la tirinayo oo 1 2 3 4 5 in uu yahay bay moodayaan laakiin runtii Elliott Wave ku suuqa wax kale oo la qiimeeyo ma jirtaba Elliott Wave aan ka ahayn marka saa ku leeyahay waxa weeye Elliott Wave ku waxa jira suuqu sideedaba 3 nooc ayuu kor u aadi karaa ama hoos u aadi karaa saddexda nooc waxay noqon kartaa ama wave uu noqon karaa mid motive mid diagonal ah ama iyo maartay ending leading diagonal ama ending diagonal ayuu noqon karaa marka saddexda noocba suuqu korna uu aadi karaa markuu suuqu socdo oo trend uu jiro oo suuqu macnaha suuq leeyahay kor uu aadayo ama hoos aadayo saddexda nooc uu aadi karaa marka waxa ku xiga wax la yiraahdo ABC ayuu Elliott Wave ku leeyahay suuqu correction markuu sameeyo ama soo noqonayo ama hoos ka soo kala wareegayo ama kor ka soo kala wareegayo ABC-daas marka aysan ku gaadin wax walba ayaa ku jira ABC-daas ama suuqu markuu soo kala wareegayo inta qaab uu soo kala wareegi karo ayaynu Elliott Wave u baranaynaa hadday noqoto inuu sameeyo calaamadahan ama maartay double bottoms iyo maartay triple tops iyo wax lamida inuu noo sameeyo hadday tahay ABC laftirkeeda inuu noo sameeyo oo zigzag tooska ah hadday tahay inuu noo sameeyo kala wareega waxyaabaha kale oo tusaya sida head and shoulders ama inverted head and shoulders inuu natso marka waxyaabahaas oo dhan ayaa ama falaad ahayna tuso ama waxyaabo kale ahayna tuso waxyaabahaas oo dhan ayuu maxaa la yiraahdaa iidankii aanu ku baranaynaa suuqu marka uu kala wareegi rabo markuu kala wareegi rabo suuqa faa'iidooyin badan ay ku tahay haddii aad trend follower ahayd waxa ku fududaanaysa inaad suuqa isaga baxdo markaas oo kale oo waayo waxa la joogaa profit taking stage ayaa la joogaa waqtigii faa'iidada la qaadanayay haddiise aad tahay qof kala wareega laftirkiisa ka shaqaysanaya halka laftirkeeda inaad sad ab ka barbaaratid oo halka ka soo qabsatid ayaa iyadana macquula master class-ka saddexaad iidankii waxaan ku dhigan doonaa waxa la yiraahdo trading psychology master class trading psychology master class psychology-ga sideedaba suuqan shaqada laga qabanayo physically wax aad u yartaa physically suuqan dhan shaqada kaliya looga qabto waa batoonka inaad soo kicisid oo buy ama sell aad ku dhufatid oo kaliya laakiin physically shaqo kale oo meeshan physically laga qabanayo maba taalba shaqada 90 ama 80% waa psychology weeye dareenkaada sa u maamuli lahayd sidaad maartay shuruucdaada u raaci lahayd si aad maxaa la yiraahdaa isaga ilaalin lahayd iimaan la'aanta sidaad isaga ilaalin lahayd maxaa la yiraahdaa baqdinta kulli ku dilaya
oo dhammaantood waxyaabo ku dilaya dhibaato ku geysanaya si aad akoonkaada u badbaadsan lahayd waxyaabo badan si aad maaragtay revenge-ga isaga ilaalin lahayd markaa psychology-gu runtii very powerful way therefore sidaas daraaddeed anoo og muhiimadda ay leedahay psychology waxyaabaha ugu waaweyn ama 80% ama 99% oo dadku u failgaroobaan ama forexiska ugu failgaroobaanna waa psychology problem marka waxaynu arki doonaa psychology master class dhammaystiran oo la xiriirta waxa kaloo meesha inoogu jira oon meesha ka maqnayn wax loo yaqaano risk management oo very powerful ah waxaad arkaysaa traderska cusub inta badan in la wareeriyo oo la dhaho ana waxaan ku galaa $1 ama 0.1 aan ku galaa ama 0.3 aan ku galaa ama 0.5 aan ku galaa ama 1 lot baan ku galaa qaab noocaas dadku inuu trade gareeyaan oo position size-kii uu ay u fahmaan inuu yahay maanta oo dhan maxaa la yiraahdaa size toos oo la gashanayo tusaale ahaan $5 inuu maanta oo dhan qofku ku garaaco trade walba taasna totally waa khalad waxna kama jiraan professional traders waxay isticmaalaan wax loo yaqaano riski maartay percentages bayna wax ku xisaabsadaan marka waynu baran doonaa hadii ilaahay yiraahdo riskiga muhiimadu leeyahay sida loo xisaabsado sida dadka professionalska ay ula macaamilaan riskiga isaga ilaaliyaan maxaa la yiraahdaa akoonkoodu si uusan maartay blow ugu dhicin ama akoonkoodu uusan u guban isla markaba وهاجك sababtoo ah ogow suuqan aad ay u fududahay in qof walba qof waxba ogoyn xitaa lacag uu ka sameyn karaa laakiin waxa dhib badan sida lacag loo kaydsan lahaa waxa kaloo dhib badan inaad lacagta si consistent u samaysid marka taa weeye tan maaragtay muhiimka arrinta kale marka raba inaan ku sheego waxa weeye sarifku runtii kama duwana cilmi kasta oo la baranayo cilmi kasta oo la baranayo ama xirfad walba oo la baranayo salahaan hadaad maqashid inuu surgery-gu yahay wax fiican ama qaliin inaad noqotid dhakhtar qaliinkii waxa ka shaqeeya inaad noqotid inay tahay wax faa'iido leh muhiimadu ma aha inaad markaba iska orodid dhakhtar qaliinka iska furatid oo dadkii qashid in fact marka waxa kugu imaanaya in hantidaadii ay qasaarto waxa kaloo kugu imaanaya in adiga lagu qabsado lagu xiro ayaa kugu imaanaysa waxa kaloo imaanaysa in maxaa la yiraahdaa psychological problem uu kaaga yimaado dhibaatooyinkii ama damage-kii aad geysatay hadii la yiraahdo marka qofku wuxuu baahan yahay si uu noqdo qof surgery buuxa ah inuu medicalkii soo maro waxbarashadii soo qaato 6 sano soo dhigto muddo soo jabo marka kadib haddana experience raasido iyadoo la hagayo marka kadib uu marka uu suuqii uu ka shaqeysto maxaa yiraahdaa maartay ama isbitaalada ka shaqeysto same concept is applied halkan isla fikradaas ayaynu isticmaalaynaa si aad u noqotid qof professional trader waxaad u baahan tahay number 1 inaad cilmigan si professional u baratid oo iyadoo aysan ku jirin wax iimaanka iska qaadida ama wax lamida suuqan waa suuq degan lacag waa laga sameyn karaa oo taas muran male laakiin sidaas oo tahay dadka ma aha lacag sida looga sameeyo wax fudud ma aha waxay u baahan tahay dedication daacad inaad tahay nidaamkana aad raacdid maartay systemka maartay aan ma garanaysa aad raacdid haddii kale suuqani hadduu iska fududaan lahayo wax macnaha buy and sell inta la raaco lacag lagu sameynayo dadkoo dhan ma aysan shaqaysteen guryahooda iska joogi lahaayeen buy and sell batona bay gargaraaci lahaayeen lacagna way samaysan lahaayeen that's the reason ay dadka intooda badan suuqan uga baxaan in kooban kaliya ay ku soo harto oo maxaa la yiraahdaa inta kale ay iska dhaan raac noqdaan inta kalena maartay ay ka haraan dad koobanna ay noqdaan dadka suuqan u haro oo ka shaqeysta now barnaamijkan ujeedada ugu weyn oo aan u diyaarinay wax weeye inuu noqdo mid iskaba marka kasoo bilow koorsada ugu horeysa koorsada labaad koorsada saddexaad koorsada afraad dhammaantood waxay u diyaarsan yihiin qaab integrated ah muhiimaddu waxa weeye waxaas oo dhan aad isku baratid skillskaas oo dhan aad isku baratid maxaa la yiraahdaa aad master gareysid wixii wada adeegsatid aad wax ku noqotid ayaynu u soconaa ujeedada u soconaa waa midda waa hagaag marka waxaa kaloo jirta koorsa shanaad oo bonus ah oo aanu kaga hadli doono price actionka si gaar ah aan uga arki doono price actionka price actionska aad ayuu muhiim u yahay asagu wuxuu la xiriiraa suuqa markaa waxa ka dhacaya yaa adkaaday ma buyerska ayaa adkaaday mise sellerska ayaa adkaaday ma dadka kor u wada ayaa adkaaday mise dadka hoos u wada ayaa adkaaday now waxyaabahaas oo dhan ayaanu rabnaa ama master classes oo dhan ayaanu diyaarinay oo ardada maartay membership-ka ayaga fuulka ku soo biira aan u sii dayn doonaa hadii ilaahay yiraahdo dhammaan koorsooyinkaas oo dhan as always haddaad rabtid barnaamijku fuula inaad isu diiwaan gelisid waxaad ku dhufan kartaa halka hoose telegram groupka horta number 1 ama telegram channelka number 1 ku soo biir lambarka labaad isku day markaa inaad maartay nala soo xiriirtid oo maartay si markaa barnaamijka aan kula process kareen laakiin waxbaha ka warwalin barnaamijkan annaka wax aad ku qasban tahay inaad barnaamijkan ka faa'iideysid kuma qasbanid si aad macnaha ay lacag u bixisid oo kaliya barnaamijkan qayb badan oo kamid ah oo hadda qaybtan aad daawanaysid casharka ku xiga waa free casharada ku xiga oo dhan waa free marka qaybta koowaad oo dhan waxaan u diyaarinay qaab bilaash ayaan u diyaarinay marka isku day inaad marka qaybta ku xigta aad daawatid oo sidaas casharadaada hadii ilaahay yiraahdo aad ku sii wadatid hagaag laakiin waxaan kaa codsanayaa adiga oo mahadsan in aad channelka subscribe saartid sidoo kale videoga aad like ku dhufatid batoonka hoose like ku dhufo wax badan oo dhibaato kuma gaarayaan
wax waqti badanna kaama qaadanaysa just like keliya ku dhufo taas waxay gaarsiinaysaa dad badan ayaa fursaddan ay gaarsiinaysaa oo ka faa'iidaysan karaya fursadda noocaana now aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaada qaaliga ah waxaana kuu rajaynayaa guul fara badan haddii ilaah yidhaahdo iyo is aragti dambe oo xiise leh iyo casharka dambe insha allah ayaa inoo balana waa injineer abyad salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu